السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa ay idilkiinba meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo mid kamid ah barnaamijyadeena Nadaara Show maanta waa Jimce mar kale waxaan idin leeyahay Jimco wanaagsan taariikhduna waa 2 bisha June sanadka 2023 waa maalin kale oo cusub waa maalin kale oo barnaamijyo aad u xiiso badan aanu idin hayno waa barnaamijkii ugu horeeyay ee maanta oo Jimco aan idin soo gudbinayo haddii Allah raali ka noqdona saacadaha soo socda waxaan idin soo gudbin doonaa barnaamijyo kale haddaba barnaamijkan waa cajiib waxaynu ku eegaynaa Ruushka oo go'aansaday inuu hubka nuclear-ka u qaybiyo dawladaha isaga soo raaca dawladii soo raacda nuclear siina Iran adduunka dhibaato ka soo socota waa la yaabay sheekadaas marka halkaas ay ku nuusan tahay Ruushka ninkii raaca oo safkiisa noqda hub nuclear la siina ninkii muxuu ahaa NATO ugu sareeyay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO shir wasiirada arrimaha dibadda ay ku lahaayeen magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway ayuu ka sheegay Ukraine inay ku biirto NATO in la isla ogolaaday Ruushkana aan waxba laga weydiin doonin sheekadaasna khatar kale ayay dunida u keeni doontaa haddaba xaaladda adduunka waxay ku sii socotaa marba marka ka dambaysa khatar dhinaca kale reer galbeedku waxay ku celcelinayaan buuq inay ku furaan Putin tigistii laga sugayay shirkii BRICS ee ka furmayay waddanka Koonfur Afrika ee madaxda wadamada BRICS la yiraahdo ee ka soo horjeedo siyaasadaha reer galbeedka ay halka ku lahaayeen marka ma tagi karo hala soo xiro sheekadaas iyo wixii laga yiri iyadana barnaamijkan idinku faahfaahin doona haddaba qodobo xiiso leh ayaan barnaamijkan aad ku daawan doontaan soo gudbinta barnaamijyadeena waxaa gacan naga siiya shirkadda xawaalada ee la yiraahdo Safari Remit xarunteedu waa UK adeegeeduna waa online fadlan booqo bogooda www.safariremit.com ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waa tahay khiyaartana daawanaysa ay mar kale ku soo dhawaada barnaamijyadii aan idinku talagalnay maanta oo Jimco ah barnaamijkeena waxaynu ku bilaabi doonaa arin cajiib ah oo soo korortay oo la yaab leh oo ku saabsan arinta NATO inay ogolaanayso in Ukraine ay NATO ku biirto qodobo kale noo soo socda oo aad u xiiso badan laakiin qaybtan aan ku hormarayna marka hore sidaad ogtihiin Ukraine waxa loo weeraray Ruush u weeraray NATO inaysan gelin waxa aragteen oo dhibaato dhacay Ukraine waa baabaaday Ruushka laftirkiisu xisaab badan oo askar uga maqan inkastoo dhulkiisa dhibaato badan hadda ay ku bilaabatay oo daroon iyo waxaas laakiin dadka dhulkoodu baaba'ay dadkoodu qaxeen leedeen waa Ukraine waxa soo dhan marka waxa horseed ka ahaa macalinka weyn iyo xirtiisa kuwaas oo dhahay waa soo gali kartaa gacmay u laalaadiyeen markii lagu bilaabayna huble ku siinayna Ruushka ha gaarsiinin sheekadaas ku bilaabeen haddaba aan idin tuso arin cajiib ah oo aad la leeyahay waxay u keeni kartaa khatar adduunkan haddii NATO ku adkaysato maxay tahay waa tahay haddaba sida lagu daabacay telefishinka Al Jazeera ayaa waxaa la leeyahay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO ninka lagu magacaabo Jens Stoltenberg waxa uu sheegay in dhammaan xubnaha ay isku raaceen gaashaanbuurta NATO xubnaha ka ah in Ukraine ay ku soo biiri karto gaashaanbuurta NATO wuxuuna intaa raaciyay in Ruushka aan waxba laga weydiinaynin in la ballaariyo gaashaanbuurta NATO oo cidii rabta lagu soo daro wuxuu intaa ku daray
isagoo hadlaya wasiirada arrimaha dibadda ee gaashaanbuurta NATO oo kulan ku lahaa caasimadda waddanka Norway ee Oslo in dhammaantood ay isku waafaqeen sidii looga shaqayn lahaa xubinnimada in markaa lagu soo daro gaashaanbuurta NATO waddanka Ukraine. mana ahanuu yiri arrintan wax lagala sheekeysanayo ama wax laga weydiinayo Ruushka. waa kow war cad waaye. sheekadan macallinka weyn ka dambeeya ninkan Norwegian-ka ah aan malaynaa Norwegian inuu yahay Stoltenberg la yiraahdo. wax macnaa oo hadda uu sheegay ma jiro, laakiin sheekadii socotay oo cirka sii geliyay. nimankii Ukrainiyiinta aan niyadda u dhisay oo ku waashay NATO aan galno oo ku waashay. Ruushna de waa gaban yahay moogta. ninka Putin la yiraahdo maalmaha waxaa la yiri waa aamusan. waxbuu la aamusan yahay. drone meel laga soo diray magaalada Moscow banaankeeda laga soo tuuray, meeshaasay ku dhacday, waa la boonbooniyay. drone nafta ka qaaday, drone de gudaha laga soo tuuray oo inta iyadoo furfuran la keeno la isku kakabo la soo tuuray. taasti meel walba lagu wareerin karaa, wax hadda weyn ma ah. marka maxaa dhacay? sheekada cajiibka oo dhacday waxay nimankan waxay sugayaan mar walba hadal ay jeediyaan falcelinta Putin ka timaada. hadda sheekada Putin waa bay iska wareejiyay, ma fahmi. nin isaga u hadlaayo samaystay oo waxa uu ka hadlaayana leh anaa marqaati ka ah oo la ii sameeyay leh. madaxweynaha waddanka la yiraahdo Belarusia ayaa u jawaabay hadalkii xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO. annaga cidaan kala tashanayna male, NATO inay gasho Ukraine waa gelinaynaa, dowladaha waa la isku waafaqay. waxaas oo dhan waxaa la juqjuqaynaa. Ruush muxuu dhihi doonaa le? Ruush maba hadlaayaba hadda. Putin ninkaanoo soo dirsaday. ninkiyaa marka war ayaga waxay islahaayeen ninka la yiraahdo Putin ka nixiya Ukraine NATO lagu daraa, waxba lagama weydiinayo. ninkan ka qaylisiya, ha wareeriya ninkan. inta dhinac kale uga soo wareegtay ninkan gaaban waa xariif la yiraahdo Putin. inta dhinac kale uga soo wareegtay buu wuxuu ku dhuftay gantaal ilaa hadda ay la shoogsan yihiin. way yaaban yihiin, wayba naxeenba. awal waxay islahaayeen ninka juqajuqeeya oo hadal xun ku dhufta, laakiin meel hoos uga soo baxay. aayadi tuso warka uu sheegay madaxweynaha waddanka Belarusia. waa tahay telefishinka CNN wuxuu xitaa soo qaatay sawirka madaxweynaha waddankaasi Belarusia. muxuu leeyahay marka madaxweynaha? muxuu sheegay Belarusia? horta madaxweynaha Belarusia waxaa la yiraahdaa uu leeyahay Alexander Lukashenko ayaa la yiraahdaa. wuxuu yiri dowladaha jecel inay ku biiraan safka dowladda Ruushka iyo waliba Ruusiya albayda oo ah Belarusia, labadooda macnaha hadda labadooda waa xulufo. dowladihii raba inay safkan kusoo biiraan oo dhinacan inay ka noqdaan raba, reer galbeed inay wax ka garaacaan raba, waxay heli doonaan hubka nuclear-ka ah waliba maalmo yar kadib marka ay ku dhawaaqaan inay safkaas yihiin. arrintan waxay ka dambeysay kadib markii aniga laftirkaygu la ii soo raray hubka nuclear-ka ee la yiraahdo taktikiga oo aan iskaga difaaci karo cid kasta oo isoo weerarta oo reer galbeed ah. waxaa laga keenay hubkaas Moscow, waxaana la keenay caasimadda Belarusia ee Minsk. war cadaaday waaye mugta. nimankan ciddaa rabtaan NATO gashada, nalama hadli karo, yaan kala tashanayna mooha. nuclear-kaygana anaa iskale. horta awal waxaa la yidhi nuclear adduunka madaxyo iyo waxa kan Ruush wax ka badan male. horta ogaada NATO dhan waxa ay haysato iyo waxa uu haysto Ruusha badan. ma kasaysaa marka Ruush NATO ciddaa rabtaan geliye, ana nuclear-kan ma ila leedihiin? maya, ciddii safkayga noqoto waa siinuu leey.
iiraan iyo cawla utahay iyo ciddii oo awalba lagu dhibay waxa kan iyo dad badan ninkii Erdogan ahaa janisa uga soo baxay beesh Erdogan oo nuclear iyo hadda boogtahay Erdogan maxadda weyn barnaamij horaan kusoo qaatay maxadad weyn oo nuclearka laga dhaliyo nabadgelyada ee korontada iyo waxa kana ruush iskala shaqeeyana loo sameeyay waa tii uu sheegay Erdogan hadal uu sheegay wuxuu yiri intaa kuma ekaan doontee wax noo diidaa male nuclearna inaan haysano maadaama dadka kalaba haystaan maxaa noo diidaa yaa noo diidi karaa qof kasta waa haystaa marka anaguna inaan samaysanayno oo cidda rabna kala kaashanayno yiri marka hadda waa la isu sii baaqay neeto cidda rabtaan ku dara annagana safkeena ciddii noqota nuclear afarta ka saarayna waxa sheegaa muxuu yahay waa telefishinka weyn ee Mareykanka ee CNN ayaa sheegaa xitaa sawirkii madaxweynaha Belarus uu soo qaaday marka sheekadaas waa cajiib ma soo khatar weyn adduunka kuma sii socdo nimankii juqjuqays waa ka dhaafi waayeen Putin waa ku wadaan waa ku sii adkaynayaan waa dhibayaan meel walba uga yimaadeen xitaa waxay marayaan hadda meediyahooda waa la soo xiraa hadduu tago koonfur Afrika cajiib shir la yiraahdo BRICS oo 5 dowladood oo isu bahaystay in ay Mareykan iyo reer galbeed iska dhiciyaan oo yiraahdaan war adduunka kaligiin kuma noolidiin waxa rabtiinna ma samay kartiin baa meesha ku sharay isbahaysi samaystay BRICS marka waxa weyn Ruushka Shiinaha Hindiya koonfur Afrika iyo Brazil marka waa 5 wadan Ruushka wuxuu ka socdaa Yurub Shiinuhu Aasiya ka socdaa South Africa Afrikay matalisa Brazilna Latin America ayay matalisa marka Ruushka Shiinaha iyo Hindiya oo iyadana Asia ka socda waa 5taas wadan sida madaxdooda halkaan noogu sawiran arkaysaan marka soo arin cajiiba ma madaxweynaha Ruushka may South Africa xiri kartaa oo intaas nuclear adduunka haysta kadibna inta ka hayso may Holland geyn kartaa Holland miska celin kartaa Ruush waxa soo dhan marka waa faataa dhug waay waxaa la rabaa ra'yul caamka in la qanciyo la iswareeriyo saas waay kan waay ilaa hadda Ruushka wax wara soo ma saarin ma dhihin madaxweynuhu waa tagaa iyo ma tagaay South Africa sanadkan iyada 5 wadan mar boqolaa madax noqota oo hogaamisa ururkaas leeyahay BRICS ururkaas BRICS marka dhaqaalaha iyo horumarka iyo waxa kan iyo lacagta dollarka in la iska daayo oo lacagaha kale la nooleeyo adduunkan dollarka xooga ku haysta waxa soo dhan ka shaqeeyaan u fiirso marka waxa marka la soo kelinayaa koonfur Afrika waxay xubin ka tahay maxkamadda dambiyada way ku qasban tahay inay xirto koonfur Afrika ma xiri kartaa anaga dhawaa ognahay qof loo sheegaa ma jira koonfur Afrika inta Putin tago ma xiri kartaa laakiin waa iska dacaayad waa qararac intaasoo dacaayada la furay ayada tusoo wargeys ka soo baxa wadanka Ingiriiska oo isaguna wax ka qoray arinta Putin waa tahay waxa leeyahay sida ay sheegtay wargeyska la yiraahdo Times ee ka soo baxa wadanka Ingiriiska madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ma xaadiri doono oo ma tagi doono kulan madaxeedka dowladaha la baxay BRICS kaasoo ka dhici doona koonfur Afrika wuxuu kaga qayb geli doonaa dhinaca internetka maxaa yeelay xukuumadda Pretoria waa koonfur Afrika ma awoodi karto inay iska dhaga tirto dalabka maxkamadda dambiyada dagaalka in la soo xiro Putin meeshaas maray mugtay xaalku halkaas uu maraa sheeko meeshaas maraysa marka maxaa dhacay marka nimankan waxay islaayeen fiiri ciyaarta waa siyaasad inaan fahmno waay ururkan BRICS la leeyahay dowlado badan raba inay ku biiraan
dowlado badan aa raba inay galaan oo nimankan ay soo karkariyeen. waxaa ka mid a turki iyo dowlado badan iyo ayaa hadda qorshaysanaya inay BRICS galaan. BRICS marka waa quwad kale oo dhankan kasoo jeesan doonta. u fiirsada, adduunka tawaasuna loo baahan yahay, miisaan. qof keligii waxba ma sameyn karo. adduunyada sideedaba tawaasuna ku socotaa. qarnigii hore ilaa waxaan kusoo soconay midoogii Sovieti, Warso iyo NATO ayaa kusoo soconay. kabacdi Warso way baxday, NATO iskaga faystay si adduunka dhan ku kaabaysay. hadda marka waxaa laga shaqeynayaa BRICS-kan inuu weynaado oo nimankan reer galbeedka macalinka weyn iyo xertiisa laga hor keeno. marka saas inaan u fahamno waay. cabsigelinta marka ninkii ugu weynaa lasoo xiraa kanaa la yeelaa inaysa xiri karin way ogyihiin. waxaa lagu argagax gelinaa dowladihii kale ee hamigu uga jiray inay halkaa galaan. haddaba marka wargeys weyn oo Al-Carabi la yiraahdo oo siyaasadda wadamada carabta aada uga faallooda ayaa wuxuu leeyahay 5 dowladood oo carbeed oo shidaal soo saara ayaa hadda qorshaystay dalabkooda shirka Agoosto furmaya ee BRICS inay geeyaan si ay ugu biiraan. warac cadaaday waaye. waa la cabsiinaa dowladihii xerta la socday oo dhan halkaanay aadooyaan. u fiirsada, xertii qayb ka mid ah inta u socota adduunkii tawaasun uu noqonayaa. sheeka waa dhowdahay. marka ay tuso wargeyskan Al-Carabi la yiraahdo oo sheekadan wax ka qoray tahay. wargeyska Al-Carabi la yiraahdo wuxuu leeyahay 5 dowladood oo carbeed oo waliba shidaal ka soo saara ayaa si rasmi ah u dalbanaya inay ku biiraan kooxda la yiraahdo BRICS, taasoo kulankeeda madaxeedka dabayaaqada bisha July ee soo aadan uu dhici doono. marka waxaa la leeyahay dowladaha Saudi Arabia, Imaaraadka Carabta, Algeria, Bahrain waxay si rasmi ah u sheegeen inay ku biiri doonaan ururka la yiraahdo BRICS. ay rabaan inay galaan ururkaas. waliba shirkiisa Koonfur Afrika ka dhici doona ayay dalabkaas geyn doonaan, iyadoo wadanka Iran uu horay isagu codsi ugu sii gudbiyayba inuu xubin ka noqdo BRICS. marka hadda waa la daraaseynayaa dalabkii Iran oo madaxda marka ay fariistaan ayaa waxaa laga yaabaa inay Iran fasaxaan maadaama iyadu ay ka horeysay kuwa kan. u fiirso marka meesha maxaa socda. meesha adduunkii wuu sii kala socdaa. Sacuudi iyo Imaaraad iyo oo xerti waaweyneed ku jireen xaggay u socdaan. kulley waxay ku arkeen mugarnaay, waxay isleeyihiin meeshaan kulley dhibaato kala kulmay. macalinka weyn soo ugu shaqaysanayo u kawinayo barkii dambadee laftaa qabad. marka adduunka xaalkaasu maraa. sheeko halkaasay maree. ruush wuxuu leeyahay safkayga kii soo galaa nuclear siira cali. isku daah dhan male. BRICS dhan marka reer nuclear waxay raboo dhan xaggee aaday meeshaasay safkaasay galayaan. marka xaalku halkaasu maraa. adduunyadu colaad maahane wax kaloo socdaba male. waa yaabaysaa markaa niyuusyada baarto. ilaahu naga badbaadi. laakiin wax walba ogaada qadar rabbi ay ku dhici doonaan. annaga dad muslimiin aan nahay, waxaan aaminsannahay qadarta ilaahay. wax walba ilaahay uu qadaro inay dhacayaan. gaalo iyo waxay maleegaan iyo waxa kan iyo war le waayo. adduunka ilaahay maamula, isaga wuxuu raba ka sameeya. laakiin gaalo sida ay wax u wadaan wax fiican maaha. sida marka dambe la isu gaadgaada adduunyadii oo dhan inta nuclear lagu fidiyo oo meel walba nuclear la dhigo meel walba la isku garaaci doonaa. haddaba barnaamijkeena jimcaha kii ugu horreeyay inta ayaan kusoo gabagabeynayaa. fadlan barnaamijkayga haddaad aada ula socotid ha iloobin like iyo share. haddaad nagala socoto YouTube-ka iyo Facebook-ka labadaba. haddaad cusub tahayna subscribe saar YouTube-ka, Facebook-kana follow garey. inta aan mar kale kulmayna haddii alla idmo sidaa iyo nabadgelyo.